Asalaamu calaykum waraxmatullah. Soo dhawaada saaxiibayaal. Maanta waxaan wax ka baranaynaa taariikhda Xaliima Yacquub. Waa haweeney muslimad ah, weliba muxajabo ah, waana haweeneyda heesa hadda xilka madaxweynaha ee wadanka Singapore. Sidoo kalena waa markii ugu horeysay ee wadankaas ay madaxweyne ka noqoto haweeney muslimad ah. Waxay dhalatay 23 bishii Agosto ee sanadkii 1954. Xaliima Yacquub aabaheed waxa uu kasoo jeedaa muslimiinta Hindiya. Hooyadeedna waa Malaay ama dadka Malaayga loo yaqaano ee hadda wadanka Singapore degan. Waxay kusoo kortay nolol aad u adag. Waxay ahayd guri dambeysta ama yaraanta 4 caruur ah oo iyadu 5 ay ku ahayd. Hooyadeed ayaa soo korisay iyada iyo walaalaheed aaba la'aan, sababtoo ah aabahood yacni Xaliima Yacquub aabaheed waxa uu ahaa waardiye. Markii ay jirtay da'deedu markii ay ahayd 8 sano jir ayaa waxa uu u dhintay xanuun wadnaha ka haleelay. Markii ay da'deedu jirtay 10 sano ayaa nolosha qoyskeeda oo adkeed awgeed ayaa waxay Xaliimo suuq ku iibin jirtay cunooyinka yaryar sida bariiska iyo waxyaabahaas si ay u kaalmeyso hooyadeed iyo caruurta kale ee la dhalatay. Haddana duruufahaas oo dhan oo nolosheeda ku gidaamnay ma aysan ka istaagin inay u dhabar adeegto oo ay waxbarashadeeda ay dhameysato. Waxbarashadeeda dugsigii sare ayaa waxay ku qaadatay isla wadanka Singapore. Sidoo kalena waxay ka baxday jaamacadda Singapore oo ay ka baratay cilmiga shareecada. Shahaadada koowaad iyo midda labaadna isla jaamacadaas ayay ka qaadatay. Inta aysan siyaasadda ku soo biirin ka hor ayaa waxay kasoo shaqeyn jirtay shaqooyin kala duwan. Waxayna ahayd qof sharci yaqaan oo sharciga ku shaqeeyo. Mar ayaa waxay soo noqotay agaasimaha macadka daraasaadka ee arrimaha shaqaalaha ee dalka Singapore. Xaliima Yacquub markii ay dhiganaysay jaamacadda ayaa waxay isbarteen wiil iyadana jaamacadda wada dhigi jireen. Kadibna ay isguursadeen. Waxaana la dhihi jiray Maxamed Cabdullaahi Al-Xabashi. Waxay u dhashay 5 caruur ah. Asaga asal ahaan waa Carab iyo Malaay iska dhal ah. Sanadkii 2017 ayaa waxay qabatay talada madaxweynaha ee wadanka Singapore. Waxaan ka baranaynaa taariikhdeeda. Marka koowaad waxaan ka baranaynaa dhabar adayga iyo sidii ugu dhabar adeegtay iyo inaysan duruufuhu aysan xirin qofku markuu isagu meel sare uu isla doonayo. Kaliya ay u baahan tahay dadaal iyo dhabar adayg iyo juhdi iyo sidoo kale inuu qofka hankiisa uu sareeyo.